أقولك النقطة وهيك النقطة وكاور مريد الكيبوي ninkii haweyn hoggaanka dalku عنك وهدافو عنك وهدافو هدافو هدافو عنك وهدافو ريبل hankaagu hadaafo 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 hankaagu hadaafo ree hebel qabyaalad hogdheer haddaan kuubsano dadkuna ka hadhaan aybiyo qoloqolo aybiyo qoloqolo qabyaalad hogdheer haddaan kuubsano dadkuna ka hadhaan aybiyo qoloqolo aybiyo qoloqolo calanka calanka calankaay calanka calanka hagarli calanka naftaba loo furay calanka calanka hagarli calanka naftaba loo furay calanka dunida agrata u yeelahay hagraday hagra عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ دمانتي من داودش قيمها هي قدرت مدن وكسر دوادا ورئيس جارو عن كلية لنا يو سفير كوريجا سومالان أمباستور كيسر عبد الله محمد ودواني سبو كسر لابتي عاصمة جمهورية الصومالان مجال هرقيسة وأندون يو إن أن وحكوي ديو سعودة كتو كتجي جمهورية الصومالان كيسر عبد الله كسر دوا ورئيس جارو عن كاقاليو آديات بنظم هاي أقبلات داديك بشينا ورئيس جارو سمعت كاقالو marka hore safir waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo sidaan ka warqabno waxaad tagtay jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Soomaaliland magaalada Hargeysa dhawaan bal waxaad sharaxaad naga siisaa socdaalkii aad ku tagtay jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa wariga Cabdi Xarago runtii muxuu ahaayay kaalinta muhiimka ah ee jirtay warbaahinta dalkeena intaas kadib runtii farxad bay ahayd in dalkii hooyo tago dhawaan kaliya maan tagin caasimadda Hargeysa laakiin runtii waxaan tagay meelo kala duwan oo ka mid yahay gobolka Togdheer muxuu ahaayay gobolka Saaxil iyo Hargeysa runtiina ujeedada runtii waxay ahayd iyadoo aan laba hawlood isku waday fasax iyo muxuu fasax waliba fasax hawleed ah runtii oo aan ahayn fasax caadi ah oo markaan dhindhinayo dalkeena iyo muxuu ahaayay runtii muddo aanan markaa tagin waxaan runtii socdaal aad iyo aad muhiim ah socdaal kula kulmay dad badan oo kala duwan muxuu ahaayay suurta galeen runtii hawlo badan oo muxuu ahaa meesha aan muxuu ahaa ka soo qabtay waxyaabo badan oo macluumaad badan aan ka helay isla markaana runtii aan arkay muxuu ahaayay sida ay dadweynaha reer Soomaaliland u dadaalayaan ee dalka gudihiisa jooga nabadgelyadu sida ay tahay kobaca dhaqaalaha nidaamka dawladnimo kala dambeynta arrimahaas oo dhan runtii muxuu ahaayay mid horumar laga sameeyay bay ahayd وأنا سفير هكا هذا حقله وحوي صعباتكي لبعض كتبته سومالنا مركز أمباستور أديكتو سنة كي هورة أتكتي هي سنة كلام مركز بربر دكتو مركز أديكتو وحيابه الله يابتو أما وحيابه تكفرح ده ودك سومالنا وقاري ما نشر حكتها حقيقة إنك سواي كنت أذكر إن بقول كبقول أنا هاي سور بوحك بحسب هيك محوها رنتي أي بدل كنا كسعودة أصلا مركان رنتي سمعنا أي ما أنت كدم بيساعدين على هرمرك أي كسي دور كيسو أو محوها يسبدل كاسي محوها إنك ويجن كسو كي حتى يسبدل بدنا أي صوب حكران هذا رنتي وحود حي فراغات يعض بدن دينا كالصباح نظام كدولية أي محوها يكب على غالها رنتي جنع سيجا وآدي يعض بلادي isdhexgalkii bulshada oo runtii muxuu ahaay aad arkaysay nidaamka xagga dawladnimo amnigii runtii waxyaabaha xagga dawladda haddii aan ka tilmaamo haybadda iyo karaamada ka muuqatay bilmatal ciidamadeena qaranka kala duwan militariga booliiska muxuu ahaay ciidanka asluubta
oo darajadoodii wada labisan doorka horreeyey waxyaabaha runtii muxuu ahaa isbedelka ka muuqday iyadoo runtii aad arkaysay muddadaasi amerikaan kasoo sokeeyey inta dhammaan wasaaradihii dalka oo gebigoodii la wada dhisay wadooyinkii oo la dhisay tusaale ahaan jidadka isku xidha berberiya hargeysa isbedelada ka muuqda runtii aad iyo aad bay muxuu ahaa ii yaabgeliyeen muddada kooban sida dadku isbedelku sameeyeen iyo guud ahaan xaggan wadooyinka kale bulshooyinku ay ka qayb qaataan ay dawladda iska kaashadaan dadka shacbiga ahay marka runtii isbedel aad u qiimo badan baa jiray dhalinyaro fara badan oo kumanaan kun ah oo jaamacadii ka qalinjibiyey baa jiray runtii waxa weeye waad yaabaysa markaad aragtid sida ay bulshadu runtii muxuu ahaayey heeganka ugu tahay inay horumar gaadho oo muxuu ahaayey ay muxuu ahaa waxaana aad iyo aad runtii allah mahadiya in somaliland ay si rasmi ah uga soo kabatay burburkii ballaadhnaa ee ku yimi xilliyadii dagaaladu ka dhaceen waddankeena marka isbedel fiican baa jira waana mid rajaynayo runtii inuu sii socdo waxaa kaloo kaysro siday ku maqaalaa ambassador aad tagtay magaalada berbera bal waxaad isbarbar dhigtaa sanadadii hore aad tagtay magaalada berbera iyaduna bal sidee waxyaabihii kusoo jiitay aad ola karto berbera waxaasaa laga qabtay aad ama xukuumadda jamhuuriyadda somaliland uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweynaha ka yahay axmed xamed siraanyo maxaad soo la kartaa waxyaabihii laga qabtay adiga indhahaa kusoo jiitay aad tagtay runtii waxyaabo badan baa ayaa laga qabtay berbera waxaa jiray muxuu ahaa iminka tusaale ahaan markaad eegtid nidaamka dawladaha hoose oo kale run ahaan berbera waxay heshay oo nasiib ay u yeelatay maayar aad iyo aad u qiimo badan maayar cabdirashiid muxuu ahaay ciddin iyo runtii xildhibaanada golaha deegaanka oo aad iyo aad dadaal badan u sameeyey waxaana yahay sharaf inaan la kulmay maayarka inaan la kulmay barasaabka inaan la kulmay muxuu ahaayey maariyaha dekada berbera mudan cali xoorxoor waxaa muuqday runtii niman dadaalaya oo xaqiiqdii muxuu ahaa intaan haddaan tilmaamo shaqada maayarka oo kale in xataa hawlo arrimo bulsho aan shaahida lah ka ahaa isagoo ilaa 10kii habeenimo ku dhow shaqaynayay oo joogo shaqada ku jiray marka runtii waxaad arkaysay wadooyinka cusub ee berbera magaalada laga hirgeliyey waxaad arkaysay ganacsiga oo runtii iminka iyadoo xataa jidadkii muxuu ahaayey la ballaarinayay marka waxaa runtii isbedel fiican baa ka muuqday waxaana la kulmay keliya un may hayn maayarka iyo barasaabka iyo xubnaha dawladda waxaan la kulmay dadka shacbiga ah dadka muxuu ahaayey mujaahidiintii hore muxuu ahaa waxaan la kulmay muxuu ahaa dad badan oo runtii kala duwan ganacsatadii marka runtii isbedel wanaagsan ayaa socday laakiin ilaa heerkii aynu doonaynay weli muxuu ahaayey runtii lama gaadhin laakiin insha allahu waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan ee iminka xukuumaddu xoogga saarayso in dekedan berbera oo ah deked muhiim ah oo qarankeena muhiim u ah oo geeska africa oo muhiim u ah inaynu u helno dad maalgashada oo runtii muxuu ahaayey inoo maalgeliya hanti geliya si ay dekedeenu u noqoto deked tartan la geli karta oo muxuu ahaayey marka runtii taasna xukuumaddu ka shaqaynaysay bulshada reer berbera runtii diyaar bay u ahaayeen waxaa ka muuqday bulsho diyaar u ah wax kasta oo xukuumadda dhexe ama cid kasta oo ka mida ummadda reer somaliland shacbi iyo xukuumadba ciddii horumar gobolkaa saaxil gelinaysa dad runtii diyaar u ahayna soo dhawaan bay ila muuqdeen badana gobolka saaxil caasimadiisa weliba ay dhahdo gobolka saaxil magaalada berbera gobolka saaxil ay dhahdo badana waxaa laga cawda xagga leyrka bal leyrkii ka warkayso markaad eegto magaalada leyrkii eedi wacaynkeeda run ahaan taasi xoog uguma warrami karo oo runtii maan tegin muxuu ahaay warshada korontada iyo arrimaha leyrka maan tegin run ahaan laakiin waxaan ogahay in muxuu ahaayey maayarka magaalada berbera mudan cabdirashiid ciddin iyo xildhibaanadiisu ay runtii ahaayeen qaar habeen iyo maalinba u heegana oo u joogay in ay magaalada berbera ka dhigaan magaalo xeebeed muxuu ahaay ganacsi waa xarunteenna dalkeenu uu leeyahay ee dhaqaalaha ee koowaad marka runtii maamulka dawliga ah ee ka jira gobolka saaxil dawladda dhexe iyo dawladda hooseba runtii dad isku duuban bay ahaayeen dadweynaha reer berberina waxay usoo jeesteen inay muxuu ahaa runtii ay maalgeliyaan oo ay dib u dhisaan berbera waxyaabaha kaloo xiisaha lahaa runtii waxay ahayd maalmaha khamiista oo kale iyo jimcayaha oo kale badda yacni inta kumanaanka qof ee ku dabaalanaya ee ka kala imanaya magaalada hargeysa iyo gobollada kale dalka yacni aad iyo aad bay runtii ku tusinayeen sida bulshadeenu imika ay noloshoodii muxuu ahaa dib ugu soo kabteen isla markaana ay berbera u tahay meel inoo muhiim ah oo dhinac kastaba dhinacii dalxiiska dhinacii muxuu ahaa ganacsiga
ay markaa waxaan aaminsanahay in muxuu horumar wanaagsan ay ku talaabsanaysay waad mahadsantahay ambassador kaiser waxaan kaloo doonaya wax kaa weydiiyo waad igtay magaalada burco ee gobolka togdheer si fiican baa lagu soo dhaweeyay gobolka togdheer bal gobolka togdheer magaalada madaxiisa burco bal nooga sheekee waxyaabihi aad kala qortay indhaha ku soo jiiteen run ahaan magaalada burco waa magaalo aad iyo aad u xiiso badan xaqida marka lagu hadlo waxay ahayd nolosheeda markii ugu horreysay ee burco tegey marka laga reebo mar aan diyaarad muxuu ahaayey ku tegay xilligii ololii doorashada oo saacad kula aan joognay marka laakiin socdaal rasman weligii burco ku tago waxay ahayd markan waa magaalo aad iyo aad u qiimo badan magaalo dhisantay magaalo ay ku nool yihiin bulsho aad iyo aad muxuu ahaa runtii dhaqankii iyo hiddihii ummadnimo muxuu ahaayey somalilandnimo aad ugu dheer yihiin magaalo runtii xadaaradeeda iyo muxuu ahaa dhaqankeedu uu yahay mid aad iyo aad soo jireen oo aad iyo aad u xiiso badan waxaanan runtii maray qaybaha ay kala duwan ee burco ay ka kooban tahay waxaa kaloo ay ahayd fursad inaan la kulmay maayarka magaalada burco waxaan markaa si wanaagsan runtii ay soo dhaweyn mas-uuliyiintaasi iyo sidoo kale aan arkay muxuu ahay abwaalkeena weyne hadraawi kulmay aadna u sheekaysanay marka magaalada burco waxay ahayd magaalo horumar ka muuqday bulshadeedu ay runtii u midaysnayd inay nabadgelyadooda ilaashadaan muxuu ahaayey horumarkooda ka shaqeeyaan waana runtii bulsho isku duuban muxuu ahaayey isla markaana ay nolol fiican runtii ka jirtay oo runtii marka la barbar dhigo dee sideen maqli jiray xilliyada dagaalado kale iyo dhibaatada waxay burca meelaha ugu badan dhibaatada burburka dagaalku soo gaadhay marka laakiin maanta runtii burburkaasi kama muuqdo waxaa ka muuqday muxuu ahaayey wadooyin badan oo laga dhisay waxaa ka muuqda berijiyo ay dadweynaha reer burco iyo dowladdu iska kaashadeen ganacsigiiba isaguna aad iyo aad u laxaad lahaa oo burco waxa weeye waa sayladeena ugu weyn gaar ahaan waxaa odhan kara waa saylada ugu weyn geeska africa ee xooluhu ka dhoofaan marka runtii waxay ahayd magaalo aad iyo aad wanaagsan waxaana madaxda gobolku ii sheegeen gaar ahaan maayarka magaalada burco wuxuu ii sheegay in ay kusoo dhaweynayeen qurba joog inay yimaadaan in ay dejin ay maalgashadaan inay dhulkii siin doonaan inay u fududayn doonaan waxyaaba badan marka runtii waxaan usoo jeedinayaa bulshada reer somaliland gaar ahaan dadka kasoo jeeda gobolka togdheer in ay runtii muxuu ahaay dalka iyo gobolkaba ay maalgashadaan waa taamaas aan usoo noqdo caasimada somaliland magaalada hargeysa sida badan dadku sheegaan waxa dhacday waxa la leeyahay shaqo la-aan badan baa wadankii ka jirta kaysaro adiguna waa adiga nimka muddo kooban kasoo sokeeyay wadankii bal nooga sheekee shaqo la-aanta wadanka ka jirta iyo dhalinyartan jaamacadaha kasoo baxaysa badana shaqo la-aan badan na wajirta watan laga sheegay wadankii markaa waxyaabahii indhahaaga aad ku aragtay bal waxaan doonaya inaad tafaasiil iyada naga siiso iyo waxyaabaha dawladda uga qorshaysan gudaha iyo dibaddaba shaqo abuurka run ahaan arrintaa shaqo abuurka waa arrin muxuu ahaayey aad iyo aad muhiimad ugu leh qof kastoo somalilander ah gaar ahaan xukuumadda runtii muxuu ahaayey waa mid ay aad iyo aad muxuu ahaayey uga warhayso isla markaana uga fikirayso ay habeenii maalinba usoo jeeda sidii loogu heli lahaa shaqo kumanaanka kun ee arday ee kasoo qalin jabinaya jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare dalka xaqiiqda waad maxaa dareemi kartaa dhaqaalaha dalkeenu ma saamaxaya arday kastoo jaamacad ka baxaan shaqo loo helo marka laakiin waxaa jiray runtii ganacsigeenu waxa uu runtii ka muuqday in uu u badan yahay ganacsigan muxuu ahaayey gaarka loo leeyahay in ay boqolaal arday ay ka shaqo galaan sanad walba oo runtii taasu aad iyo aad kaalin muhiima ka qaadata shaqo abuurka oo ganacsigan muxuu ahay gaarka loo leeyahay ama shirkadaha waaweyn runtii waxay mar walba qaataan dad badan oo shaqaala arday ah oo jaamacadaha kasoo qalin jabiyey waxaa kaloo jira iyagana muxuu ahaayey hay-adaha kala duwan ee muxuu ahaayey dawliga ah iyo kuwaan dawliga ahaynba markaasi xukuumaddu iyadu taa ka fikiraysa si dhalinyaradan shaqo loogu sameeyo waxa qorshuhu yahay oo muxuu ahaay wasaaradda gaar ahaan shaqadu ay gacanta ku haysa iyagoo wasaaradda qorsheynta qarankana kaashanaya sidii loo joojin lahaa ajnabiga muxuu ahaay hay-aduhu ay kasoo garaysanayaan wadamada kale ay kasoo qoranayaan marka wixii muwaadiniinta shaqooyinka caynkaas qaban karaya in muxuu ahaa iyaga la siiyo muhiimadda koowaad marka xukuumaddu qorshayaal badan bay runtii muxuu ahaayey leedahay waxaanan ognahay runtii muxuu ahaayey iyada oo mar walba ay faa'iida noogu jirto in bulshadeenu ay waxbartaan oo waxbarashada qaybaheeda kala duwan kuwa gaarka loo leeyahay kuwa dawliga ahba ay aada u badan yihiin waddankana jaamacado aada u tiro badan laga hirgeliyey haddana waxa weeye runtii ardayda kumanaanka kun ah ay kasoo qalin jabinaysaa waa arday u baahan oo xukuumad keliyata maahe shacbigeena oo dhan uga baahan in loo fikiro layska kaashado si dhalinyaradaasi shaqo abuur loogu heli lahaa sababtoo ah waxaa dhacda waynu runtii ka warhaynaa in arday badan oo jaamacadii dalka kasoo baxay oo intaas sanado lagu soo tabacayay ay naftooda kusoo biimeeyaan inay tahriibaan
marka runtii waxa weeye taasi waa mas-uuliyad saaran xukuumadda iyo shacbiga iyo dhammaanteenba waana mid runtii aynu muxuu ahaye dadaal dheer ugu jira sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa waa tahay ambassador waxaan ku jirnay guntii gabagabadii barnaamijka waxaan doonayaa bal in aad maxaad tala usoo jeedinaysaa wixii tala iyo tusaale usoo jeedinaysaa qurba jooga iyo dadkii dibadda joogay markii adigu wadankii aad ka timaan soo indhahaaga kusoo aragtay maxaad tala usoo jeedinaysaa dhammaan shacabka somaliland guda iyo dibadda maxaad usoo jeedinaysaa aad iyo aad baad mahadsantahay fursadda qaaligaada siisay runtii anigoo taa ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay marka kuwaad shacbiga dalka gudihiisa joogay inaan halkan kala hadlo anigoo runtii u tilmaamaya in somaliland ay ku socoto dariiqii horumarka xaqiiq marka lagu hadlo marka laga soo bilaabo 1990kii xilligii dalka aynu kusoo laabanay iyo maanta heerka uu marayo aad iyo aad buu muxuu ahaay u kala duwan yahay waxa aynu dhisanay qaran nabdoon dimuqraadi ah xuduudihiisa maamusha amnigiisa ilaashada waxbarashadiisa dib u dhisay dhaqaalihiisa dib u dhisay isla markaana 10 sano halkeenu taagnayn ma taagnaan doono 10 sano soo socda dalkeenu horumarkiisu socon doonaa waxaa loo baahan yahay shacbi iyo xukuumadba in laga shaqeeyo ilaalinta amniga nolol ayaa muxuu ahaay nabadgelyadu nolosha ay ku jirtaa sidoo kale waxaan jecelahay fursaddan inaan ka faa'iidaysto oon halkan hambalyo uga diro ogaasyada boqorrada salaadiinta cuqaasha aqoon-yahanka culimaa-udiinka iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay shirkii dhowaan muxuu ahaay ka dhacay magaalada la yidhaahdo ka dhacay deegaanka la yidhaahdo coodan leh ee lagu heshiisiiyey beelaha bariga ee reer buuhoodle iyo qorlugud waxaan dadkaas u soo jeedinaya hambalyo waxaan leeyahay gobolada dadweynaha ku nool gobolkaasi ama aagaasi in ay ka faa'iidaystaan nabadgelyada dhacday waxaan ugu hambalyeynayaa cuqaashii iyo odayaashii shacbi iyo xukuumadba arrintaa kasoo shaqeeyey waxaan leeyahay nabadgelyada ha lasii xoojiyo wax alla wixii muxuu ahay lakala tabanayana in lagu dhameeyo dariiqi wanaagsan ee wadahadalka marka waxaan bulshada reer somaliland guud ahaan usoo jeedinaya inay ilaaliyaan amniga noloshu waxay ku jirtaa ilaalinta amniga in ay garab siiyaan ciidamadeena geesiyaasha ah ee habeen iyo maalinba usoo jeeda ilaalinta muxuu ahaye xuduudaha dalka xuduudaha cirka dhulka iyo baddaba oo mar walba muxuu ahaye runtii heegan u ah inay ilaaliyaan muxuu ahaye qarankeena markayna la shaqeeyaan wixii ay ka shakiyaan ay la socodsiiyaan isla markaana ay yareeyaan muxuu ahaye wax kasta oo dhib ku keeni kara wada noolaanshaha iyo degenaanshaha dalkeena iyo mandaqadaba dadweynaha ku dhaqan qurbaha waxaan leeyahay waxaa laydinka fadhiyay kaalintiinii waan ogsoonahay in kaalin muhiim ah oo ballaaran aad ka qaadataan dibudhiska iyo horumarka dalka laakiin waxaa loo bahan yahay kasii lama laabtaan dalkeena waxa uu dhintay 10,000 kun oo geesi baa usoo naafoobay innaga kaalinteena waxa weeye in aan ka qayb qaadano oo muxuu ahaaye dhaqaale muxuu ahaye dalkeena u abuuro maalgelin u sameyno isla markaana aqoontii halkan laga bartay lagu celiyo waxaan markaa leeyahay dadaalka si dadaala shacbi iyo xukuumadna muxuu ahaayey in gacmaha la isqabsado sidoo kale waxaan bulshada reer somaliland aan kaa dhexgalay kaysar waxaad kaloo ku dhex dartaa jaaliyadda bristol waxaad kaloo soo jeedin lahayd baan kaa ilaawin intaa iyadana aad raacaysaan doonaya iga magaaladeena bristol runtii waxa weeye magaalo jaaliyadda ku nool waa jaaliyadaha ugu horeeya erguna muxuu ahaaye runtii dadaalka badan jaaliyadaha reer somaliland ku nool qurbaha waxaan leeyahay gacmaha isqabsada ka shaqeeya horumarka dalka isla markaana ilaaliya muxuu ahaaye midnimada iyo muxuu ahaaye wadajirka dhexdiina isla markaana qof kasta oo muwaadin ah oo reer somaliland ah oo qurbaha ku nool waa inuu ogaado inuu yahay safiir dalkiisa wakiilka ah cidna aanu ku hadlaynin waxa uu qaban kara dalkiisa xukuumad aanu ku hadlaynin cid kale aanu ku hadlaynin qof kasta waajib baa saaran sidii uu u gaari lahaa ama uga qayb qaadan lahaa sidii aanu u gaari lahayn yoolka aanu leenahay ee shacbigeenu leeyahay himiladeenna oo ah in la helo qaran nabdoon dimuqraadi ah degan oo dunidu ay aqoonsan tahay dadweynihiisuna ay ku nool yihiin cadaalad iyo barwaaqo iyo wasnaanshaha sharciga marka waxaan usoo jeedinaya dhammaantiin gacmaha isqabsano run ahaan guulo badan baa soo socda waxa soo socda muxuu ahaye runtii waxyaaba badan oo mustaqbalka dhow lagu farxi doono waxaynu muxuu ahaa ilaahay ka dhigo heli gaari doonaa yoolkeena dhinac kastaba marka muwaadin kasta haddii uu yahay muxuu ahaayey shacbi caadi haddii uu xukuumadda ka tirsan yahayba waxaa loo baahan in la wada shaqeeyo loona wada shaqeeyo sidii qarankeenu u noqon lahaa qaran dhisan dunida aqoonsan tahay oo degan oo dimuqraadi ah
هذه أدنى كوما هذا يا وري عبد الحرقو aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa safiirka wareega jamhuuriyadda somaliland mudane kaysar cabdilaahi maxamed oo aan ku wareysanay magaalada bristol oo dhawaan isagoo kasoo laabtay magaalada hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda somaliland intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaya wareysigaasi aan la yeelay ambassador kaysar cabdilaahi intaynu daba kulmi doono waa anigoo cabdi baaruda xarago idinku dhaafaya amaanaan la yeesmo qaldambe oo xiiso badan xagga sawir qaadistu waa cabaas nabadgelyo أقول كنوضاي Ohay ka noqdaan وكاور مريد الكيبوي ninkii u haweyn hoggaanka dalku عنكاو هدافو 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 عنكاو هدافو رير